deegaanka waxaad sheegtay inay ka jirto xadaarad siyaasiya oo xisbiyo kala duwan oo aragtida ay kala duwan yihiin waxaan soo qaadayaa ONLF jamhadda xoreynta ogaadeen muddo dheer ay dagaalamaysay xorriyadu dagaalamaysay heshiis ay qaadatay casmaro dadkii tagay wax ka siixaad ka mid ahay oo maamulka uu cusub yahay deegaankay timid laba garab ay u kala jabtay waxa la aaminsan yahay marar badan lagu eedeeyaa adiga Mustafa iyo maamulkaagu inaad kala jabkaas qayb ka qaadateen maxaa ka jira arrintaas marka maamulkeedu mas'uuliyadda saaran waxa ahayd inaan isku hayno ururka mucaaradkeena la tartamaya laakiin waad ka shaqaysaa macnaha eedan ku leeyahay macnaha waxyaalaha suuqa laga leeyahay macnaha ku leeyahay yani fahanka siyaasaddu inuu ka dhaafo warka suuqa fiican waxaan nahay urur tartamaya weeye oo Soomaaliya ma oran anaguna urur baan nahay talada hayaan Soomaaliya ururada tartamaya inay isku dayaan inay dhinaca kale dad ka helaan oo fikirkooda ka iibiyaan ay ku guuleystaan maceeba misoonay wad kale jeesay ma inaan u bandhigno barnaamijkanaga oo aan la fadhiisano oo qaar kamid ah ku qancino oo kuwa ku qancay ay noo yimaadaan anaga iyana dawladda dad ku jira inta u bandhigaan kuwa shalay nala socday dawladda anaga nala socday oo maanta iyaga la socdaa jira qarabka kala la socdaa jira oo anaga wasiir noo aha halkan nooga ah يعني إن سياسيا عدوى عدة أي كسبان كرتو معناها كسب شر إن عدوى اللي ببرنامج كده عدة كلا كوكان عيسو ما ترتن يوناك سياسات با سواء عيد هرت كو لبا تاس إيو سيدة تايل أنا برنامج كي سياسات إن ديجان كيف من عيد كوكان عادي أو أوركا أو نلفا أو أورهان أورنمدي كتكتون صوبش مشرتو أوركي باكو قيب سمي يعني سيده لو دغay wada la kaliye maxay ku kala jabeen inta isma weydiinay ururku wuxuu u qaybsamay inaad Sweedsa fiican ururku wuxuu ku qaybsamay qofkii ay ka baxeen xabadii iyo dagaalkii ay urur siyaasadeed noqdeen yani qaabkeen ula shaqeynaa oo siyaasad ahaan aynu laba maamulada Itoobiya hadda ka jira ula shaqeynaa bay ku kala duwanaayeen qolo waxay tiri qol hadaynu meeshii joogno diyaar garow siyaasadeed u baahannahay maamulka meesha ka dhisanay Soomaalida iyo Mustafa inaan la shaqeyno oo aynu deedna inagoo gudihii ku jirna waxaan qaban karnaa qabanaa fiican bayda qolada waxa laga yaabaa inay dareentay maamulkan cidi bedelaysa maamulkan ma fiicna ku kala oo ka fiican baan heli karnaa cidi bedelaysa iyo aan la shaqeyn waxa lagu qaybsamay ma muhiim marka su'aashaas inaad kula noqoto ururka fiican oo tiraahdo maxaad u qaybsantay anaga waa ka shaqaysan laakiin kuwa imika jira hadii qolo kale oo nagu qanacsan oo imanaysa jirana kuwa haddana mucaarsan garabkana mucaarsan qolo nooga timaadada maanta helina waan qaadanayna diyaar baan waxa ka dhigantahay waa ka shaqeynay anaga waan ka siyaasad ahaan baan ka shaqeynayna waan ka shaqeynayna ma habeen iyo maalin baan ka shaqeynayna inaan kasbano kuwa kalena kulligood badaan karayna xaggan inaan soo marino waa shaqo noo taalaba waa siyaasadda aan noo taalaba taa macnaheedu maaha urur mucaaradan diidana mucaarad walba oo jira inaan qancino oo anagu siyaasadana ku qancino waan isku dayna kuwan qancin weynana tartan naga dhaxeeya inaad madaxii markaa baasha ka dhowraysid Soomaa oo aad rabtid kaliya in hal Allah maqlo codka Mustafa la maqlo xisbiga barwaaqo la maqlo laakiin codkana aan la maqlo ma aha yani inka xisbi kale inuu abuurmo oo meesha ka abuurmo diidan xisbiga jira ee ururka hadda oo la garabka jira inuu nala tartamo ma diidan waan ku sheegay waxaan ku ori tartanka siyaasadeed ee hadda aan ku jirno inaan xoog cusub mar walba helo oo tartan fikirkanaga cidi raacda ay soo raacdo inaan ka shaqeynaa inaan diidanahay mucaaradada ma madaxweyne adigu waa ka duwan tahay dad kale oo dhan waxaad uga duwan tahay deegaanka mas'uuliyadiisa oo dhan haysa mucaaradkaaga eedaha badan ma gaari karaan marka la fiiriyo mas'uuliyadda adiga haysa soo mas'uuliyadda ma dadka Soomaaliyeed deegaanka jooga inay isku haysan inta cid kale u hanqal taagi lahayd القنعسيدادي واي عندنا مقام عدادي شيء inay meel kale aadayso leedahay maamul ka bedelaan oo bedelaan marka waxay kula tahay adiga mas'uuliyadeeda maadaama dadka inaan isku hayo in dana siyaasadeed iyo mabaadi la isku khilaafsan yahay la soo iman karo no mas'uuliyadeeda ma mas'uuliyadeeda waa waxyaalaha khaladka mas'uuliyadda aniga isaarani waa inaan nidaamkii dawliga ahayn hogaaminay dadka oo dhan u cadaalad faro shuruucdii iyo qawaaniintii socodsiin ku dhaqmo weeyaan laakiin dadka oo dhan kala waxaad dhinac ka leedahay cod kala diidan tahay oo dadkii oo dhan ba soo kasbanaysa waa dhinac leedahay kala waxaad dhinac ka leedahay imika isweydiinaysa muxuu mucaarib u jiraa mucaarib u jiray ma isku hayn la'aan kama muuqato mucaarib u jiro politics waa divisive waa lagu qaybsamaa wadan iyo dal meel adduunka ka jira oo siyaasad ka jirto oo dad banaanka jooga oo codkoodu dadka maamulka ay diiday una jirin ma jirto marka isku hayn la'aan dadku ma jirtaan kulay wax bulsho oo hadda iskaashta ma jiro anaga tuulo la kala hayo ma jirto
dadku waa walaalo shahaba la wada cabaya wax dhibaato jira ma jiro communal division balaarada deegaanka ama qaybsanaan bulsho oo ka jirta deegaanka ma jirto waxaa jirta qaybsamaan siyaasiyiin qaybsanaanta siyaasiyiintana waa qayb ka mid ah nidaamka dawliga ah in siyaasadda lagu qaybsamo siyaasiyiintaasina masaalixdooda iyo aragtidooda kolba kuwa isku soo dhawaato yaa dhinac isu maraya marka mas'uuliyad siyaasiyiinta inaan mideeyo ima saarno saasay tahay waxaan kugu bilaabay intii isku afkaar maxaa lagu midoobaya horta soo fikir maaha intii afkaar siyaasadeed israaci kartaa in israacdo intay soo kasban kartaan ay ka shaqeyso waa sababtaan kuu leeyahay cid walba annagu waan ogolahay inay noo yimaadaan ciddii laakiin ku qanci weyda qaabkan waxu wadno si aad uga dhaqmaynaa wey su-aashu ciddii ku qanci weyda in annaga aan soo fikirka qaabkan waxu wadno isku soo dhaweyntii mas-uuliyadda aan qaadanay iyo wada hadalka yeeli weyda tartankii inay siyaasaddii nagula jirto oo ay nala tartanto oo ay dadkii waxaan u sheegayn wax ka duwan u sheegto kama hor istaagtin laakiin inay soo baxaan inay soo baxyo sameeyaan inay aragtidooda cabiraan mararka qaar waa diidaan soo ma wixii sharcigu diidayo umaan diidnaa laakiin inay soo baxaan oo ay afkaartooda sheegtaan oo ay hadlaan ma diidno laakiin mararka qaarkood qalalaasi iyo amni darro wixii keenaya waan ka hortagnaa dabcan wuxuuna qalalaasi hadba sida siyaasiga kursiga joogaay ku fadhiyaay uu adeegsado noqonaya soo ma qofka kursiga jooga ee maamulka haya ee sharciga meesha ka jira sharciga ee wadanka yaala hogaaminaya suu u yiraa yaa u noqonaysa qalalaasi sababta hay'adaha amni baa jiro ka dhaxeeya cid walba laakiin dhinacii kalena tusaalayaal cad oo matalan ba haddii waxa la dhacaan amni mas'uuliyadii u fuliya jira marka mas'uuliyadda qaata amniga oo sax baa la yiraahdaa wax kale ma jiro يعني waxaa adu dhigta maaha anu saa u dhiga maaha anu sharci soo dhigo anu sharcigi baan yaan muraad u ahaa dawladda deegaanka ee dhisneyd hadaan dawladda jirin hadii nin walba suuqa jooga raayiisa la raacayo yani waa wareer dawladdu meesha ka jirta fikirkeeda iyo qawaaniinta qoran ee xagga amniga ka saaran yaa lagu tabaqaya laakiin caburis noocaas ma jiro madaxweyne adigu intaad xukunka imaan aragtida oo nalif aad waa aaminsanay waa difaaci jirtay mararka qaar qadiyadaha qaybo ka mid ah maanta qadiyadii iyo aragtidii noocaas ay maaminsan maxay qadiyad oo gobolkan xornimo helo inuu noqdo gobol soo isku tashada inuu ma qaban yow taa hadda maanta mad weydiis ma aan ku weydiina hadda aan wada joognaa aan ku weydiina aragtidii maalintaas qabtay maanta aad ma qabtaa Mustafa anu aragtidan qabo waxay ahayd dadkanaga shacabkanaga deegaanka jooga koow inay xor noqdaan waan qabaa maanta xor waa maxay macnaheedu marka inaan Ethiopia ka goono calan qaadano oo aan ornaa mise waa inaan anagoo Ethiopia ka tirsan xuquuqdanada iyo xorriyaddanada ku helo oo maamul shaqeynaya iyo ummad aan lagu tacdiin aan noqono kolba tabartanada iyo duruuftanada halka ayna dhigto inaan raacno oo waaqici noqono fikrada qaba iyana way qabaan hadda igama duwana waxa ku cadeynaya urur siyaasi oo dalka Ethiopia ka halgamaya way maanta taa kuma kala duwan aniga oo aragtida kuma kala duwan shalay tacaddigii iyo tigreegi dadka leeynayay dhigeyso iyo baabi umada haystay hadii uu jiray dareen ahaa war waxaan kuma dhex noolaan karay aan banaanka ka istaagno oo aan ka baxno waa la wada qabay boqolaal sano fikirka la qabay waaqic maanta jira sidii uu yahay aan ula dhaqanno oo wixii noocaas ah halgankii hooysnaa noocaas ah iyo duruufihii jiray inuu ma saamixin haddaan wix tacaddigii nagu socday inaga istaagayo bal aan tijaabino inaan nidaam Ethiopia dhexdiisa xuquuq ku raadsanada waa fikir aan ka midaysanahay maanta waa kuma kala duwan laba dadka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool khayraadkooda iyo maamulkooda ha u madax banaadaan waa fikir aan qabo kolka ahdaaftii shalay aan qabin baa maanta na qaba laakiin marka aad leedahay ururka on ahdaaftiisa aaminsaneedna ahdaaf aan ku diidanaa baa jiray waaga oo magacu ka mid yahay kuwiina sidii aan u diidanaa bayzuwi ina anu oona xukun kama hayn weligeena ma noqon halka in ay dadka dhigeysanaya khalad ka fahmaan ma weligeena xubin kama noqon weligii Allahayna ma aanan hayn qof taageersan magaca ay wataan mar walba waxaan taageersanaa xilliga iyada dadka naga la leeynay gabdhaha naga la kursanay wala baabinay ummadan looma joogin xilli marka lagu mashquulo magacani ma saxba ma khaladba waxay doonaan hala baxan jin hala baxan day doonayaan laakiin in dad bila aadama magac dartii lagu batmaansado oo nidaamkii Ethiopia ka jira uu ku laayo gabdhaha ku korsado ku dilo ku xalaalaysto sax ma ahayn saadaradeed eeg marka waxa jidkan isku soo dhacay anigoo tacaddigii dadka naga lagu hayay dhibaatada lagu hayay diidan oo arka inay khalad tahay dadkan in la beegsado iyo iyaga oo marka cod u ahaa
fikirkii ahaa dadkii aan la laynin waa laga yimid maanta labada mid waxaan nahay siyaasiyiin iyana waa urur siyaasiya oo adsaba ka register garaysan oo golaha doorashooyinku yaqaano oo Itoobiya dhexda ka halgamaya aniguna waxaan nahay urur siyaasiya oo kii talada hayay ee dalka la socdaana waxaad ka sheekeynaysaa hore aad leedahay shalay inaad aad ka sheekeynaysaa maanta ma taagna وهاج أفر سنة كهر ديان كوحها ملح حرام سوقل تانك سؤال عدقي هاي حدودي سؤال عدقيهين دتكو إن حرية دو ديبتان أيادو على التاعي حقيقة المركز ديب الله لعطو نعم كجودة إثيوبيا نقيبة يوكا ما ربنا إثيوبيا أولي دبها كتير سياسة ده إن الفرفرة أو دتكو أي سوق سفر كلا أو فرماض ما مصطفى كشقي نسي واسبدل جودة إثيوبيا isbedelka guud ee Itoobiya wanaag uu keenay baa jira oo fara badan annaguna maamul ahaan deegaanka intaan joogno isbedelkaas wixii wanaagsanaa ee ka yimid inaanu qaadano aanan caqabad ku noqon koow laba inaan wax ku sii darno aan halabar ku darno labadaba waan keenay waxa ka mid ah isdhexgalka Soomaalida ee geeska Afrika ka socdo kale annaga ku darnay dhab weeye oo dawladda Itoobiya maanta dawladdii saska ka qabtay Soomaalida inay isu tagto oo ay ganacsi iyo bulsho ahaan isdhex maraan ma aha waa dawlad ka duwan oo aaminsan mandaqadan dadka ku nool inay isku dayihiin isdhexgal Itoobiya Soomaaliya tan waxa ka hadlaya gobolka furfurnaanta gobolka siyaasadda ama safarka ama siyaasadda haato uu ka duwan yahay 4 sano sidoo ku ahaa waa Mustafa ayaa sabab u aragtay siyaasadda Mustafa xaliya ma jiro meesha dawladda ka dhisan anu shakhsi baan horta eeg maada dalka ka timaadeen maadaama oo madaxweyne loo aanay wax kasta halka saameeyay anu xisbi aan dawlad baan nahay Mustafa ma waa dawladdan hogaamiye anu waxaan soo wadaa waa dawladdan anu hogaamiyo dawladda anu aan hogaamiyo ee ka dhisan deegaankan ayaa sabab u ah furaanshaha maanta ka jira meesha sababtoo ah 200 oo sababood oo aan ku hadaan anigu diidanahay fikirka aan ku joojin karnaa jira 200 oo sababood oo hadaan anigu diidanahay dhigayso haddaan anigu diidanahay dadku inay soo dibadda ka iman inay xor u soconin inaan haddaan diidanahay oo sas ka qabno 200 oo sababood oo u adeegsan karnaa jira oo ku joojin karno ma aan joojin waan fasaxnay laakiin xuquuq dadka aan siinay ma anagu xaq muwaadinku xaq uu leeyahay Mustafa ma siinin kama qaadi karo uu u dhashay qofku inuu xor yahay inuu wadan ka yimaado inuu socdo xuquuq uu leeyahay Mustafa iyo dawladdiisu xuquuq ay siinayaan oo lagu abaal lagu haynayo oo maasiin la oranayo ma laakiin dawlad ahaan mas'uuliyadda naga saaray in dadku furfuraanshaha ay ku noolaadaan waan gudanay wajibaadka saadartii maadaama eedeeda aan yeelan lahayn amaanteedana waa inaan yeelana Itoobiya labadii sano ee la soo dhaafay dagaalada ayaa ka socday waqooyiga dalka kuwaas oo ka soo bilowday isbedelkii dhacay Abriil 2018 xukunka doorkiina muxuu ahaa isbedelkii 2018 ka dhashay daga Itoobiya labadii sano ee la soo dhaafay dagaalada ayaa ka socday waqooyiga Tigray kuwaas oo u dhaxeeyay Itoobiya iyo jamhadda TPLF waxay ka bilowdeen dabcan xukunka markii Abriil 2018 isbedel ku dhacay TPLF ay diiday doorashooyinka la isku khilaafay doorkiina idinka muxuu ahaa ka Soomaali ahaan wuxuu ahaa inaan garab istaagno xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo wax badan oo Soomaali u hagaagay oo deegaanka noogu hagaagay qayb ka waxaan kaaga sheekiyay oo dhan in diinta xor loo ahaado in anaga deegaan ahaan kaliya ma nahay dawlad ahaan isbedelka yimid ee wanaagsan inaan dhiirigelino oo garab istaagno waajibna waa nagu ahay oo xisbi iyo dawladda ka tirsan weeye laba dawladood oo dal kale oo shisheeye oo nid oran muxuu ahaa ma dawladdi baan anaga ba dawladdi ah dawladda federaalka ee ra'iisul hogaamiye waa anagiiba cid kale ma marka door waxaan ku lahayn hormooda oo dawladdiida hawshan waday ee barika hadii maanta laga guuleysan lahaa dambigeeda wada qaad lahayd baan laga guuleysan lahaa marka dawladdii baa anaga dawladda la hadlaysa ee leedahay doorkiina muxuu ahaa waa dadkii hogaaminayaan aan ku leeyahay dagaalkan Tigray lagala galay TPLF lala galay muxuu ahaa Tigray marka gobolka kooxda maamulisan ka hadlaya shacabka ma lala galay cidda hormoodka ka ahayd anaguba Mustafa ahaan waxaad ahayd dadka aad ka u dhaliila TPLF xukunka markii ay joogtay intuu dagaalku socdayna warbaahinta caalamiga iyo fagaarayaasha goobka hadal baad ahayd aad uga hadla sheega wax kasta oo dhaliila marar badan sheegay inay soo afjarayaan tusaale markii aad sabab ku soo dhawaayeen hadal adaga tiri oo ah
isku saacad baanu gelaynaa mana soo maqoonin karaan hadda heshiisaa dhacay heshiisaa la gaaray wuxuu kaga dhigan yahay idinka wuxuu uga dhigan yahay waaqac siyaasadeed maanta jira heshiis baa dhacay heshiiskaas dagaalkii socday ee dhiig badan ku daaday ayuu soo afjaraya marka horeba fikirka yani markaan Soomaali ahaan u sheekaysanayno yani anagu dawlad deegaan baan nahay Soomaa laakiin dalkan ka tirsanay dawladda federaalku Dr. Abiy iyo inta aad soo joogta maaha dawladda federaalka ee Ethiopia la sheegay anaga weey inaad fahanto wax u baahanta fahanaan federal government of Ethiopia marka leeyahay anaga lagu afkayga lagu hadlay aniga dawladda aad sabab maaha waa dawladda deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Oromiya ta gobolka Axmaarada weey marka yani kala saarida idinki iyo iyaga meesha ma taalo isku dawlad baan nahay meesha taalo waxyaalaha aan kala dawlad ku nahay way jirtaa waa maamulka hoose laakiin wixii la xiriira barnaamijka guud ee dalku uu qaato isku dawlad baan ka nahay marka mowqifka dawladda federaalka qaadatay yaan boqolkiiba boqol taageersanahay waxaan u aragnaa mowqif sax ah oo naf lagu badbaadinayo inuu yahay adduunkana dagaal way dhacaan haddaad shalay dagaal ku baaqayseen maxaad nabad u raacaysaan lama oran karo dagaal walba adduunka ku jira wuxuu ku dhamaadaa miis ku dhamaadaa iyo waraaq la saxo all war is end on a table bale so wax adduunka aan ka dhicin ma aha in shalay dadka abaanduulayaasha dagaalka ka ah hogaaminaya ay salaamay ma aha siyaasiyiintii kuwii xabad isku riday laba dhinac ka soo jiray waa caadi marka waan taageersanahay heshiiska cadaawada hore ee qolada TPLF aanu shakhsiyan aanu qabay sax bay ahayd gaari doonaa 100% sax bay ahayd waa gaari doonaa madaxweyne kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa dhawaan weerar ku soo qaaday laba xeer ciidan oo maamulkiinu lahaa oo xuduudaha ku yaala ayay soo dhaafeen dhulka gobolka Somali State qaybo kamid ah ay soo galeen waana ka dagaalameen dagaalkaas iyo soo galitaankoodana waxa la aaminsan yahay inay ahayd markii koowaad oo ay isku dayeen inay gobolka u soo tallaabaan tay Soomaali ka baxaan ee ciidanka leeg inay goob meel kala weeraraan sida u maareysan waxaan u maareynay in waa la isweydiin karaa inay dhacdo ma ahayd mise ma ahayn laakiin wax kasta adduunka uu dhacaa lama filaynin runtii in isku day noocaas oo ballaaran oo ila gudaha gelayna ah inuu xaggooda ka imanayo xuduudda in dagaal ay isku soo qaadi karaan waa la qiyaasiyay laakiin markii ay taasi dhacday oo aan u aanaynayno inay xiriir la lahayd dagaaladii waqooyiga ka socday oo yani coordination uu jiray xaggan kaga dhufan oo kale inay u ekayd si loo maareeyo waxa in muddo 10 cisho aan ka badnay lagu soo afjaray kooxdii soo gashay gudaha timid laga saaray deegaankii shacabkii ay noo mideysay hay'adihii amniga fursad aan hoos uga eegno guddoolooyinkanaga ay nasiisay maantana aan ku kalsoonahay in maaragtay deegaankii amnigii laba sano ka hor soo ahaa si ka wanaagsan inuu yahay gaar ahaan xuduudda markii uu socday dagaalkan maalintii uu soo dhamaaday yaad ku dhawaaqday inuu dhamaaday hadal baad sheegtay aad u faafay oo ah inaad ka caagan argagixisada ka sameynayso gudaha Soomaaliya ma hirgelis aragtidaas weli ma dhaqan gelin arrintaas laakiin qorshe in aan iska riixno al-shabaab xuduudda aan ay kulaalayso aan dhaafin ugu jira laakiin weli ma hirgelin duruufo gudaha naga dartii laakiin fikir ahaan ujeedadu dhul Soomaaliya in la qabsado iyo sidii loo dhigay saxaafadda ma ahayn haddana maamulada ka jira Soomaaliya baan la shaqeynaa hadda maamulka gobolka Hiiraan ka jira hadda waa iskaashanaa haddii maamulada halka ka jira ay iyagu aagaas aanu rabno ee inaan shaab noo soo dhaafin ay iyagu mas'uul ka noqdaan de sabab anigu aanu aag u sameynaa meesha ma taalo yani qaabka saxaafadda loo siyaasiyiin yaan rabaa inaan hadda ku sii sheegaba intaadan gaarin anagu waxaan rabnaa in shabaab xadkaniga ay ka fogaato maamulada xadka ka jira ee Soomaaliyeed iyadoo oo lala kaashanayo dawladda dhexe oo iyaduba hadda Soomaaliya oo iyaduba hadda riixaysa dawladda federaalka in maaragtay iskaashi amni la sameeyo in shabaab meel laga saaro baa loo baahan yahay aag baa la sameeynaya iyo wixii la dhexgeliyay kala ma ahayn hada loo margi baa la yiri laga yaabay loo turjintay inaan u qabsanayno kale ma ahayn saamahay deegaanada xuduudaha ku yaala Yeed iyo Aato iyo Ceelbirde waxay kamid yihiin goobaha ciidanka adiga xukunta ee Liyu Police ay ka howlgalaan waa dhul Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya ku yaala haddana ciidanka Liyu Police ka jooga halka سيد محد ريمي سامركاس بيداوية شو
ciidanka Ethiopia oo amisom ku jooga ma ka hadlayo waxaan ka hadlayaa ciidanka Naples ee gaarka xamar yaa jooga Ismaaciil yaa jooga ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad Shabeelle Bank shakhsiyaad garanaysid baa shilinkaaga loo dhiibtay Shabeelle ha moogaanina Shabeelle Bank shakhsiyaad garanaysid baa shilinkaaga loo dhiibtay Shabeelle ha moogaanina يعني ciidan la isla ogol yahay hadduu meel joogo processkii sharciga iyo nidaamkii sharciga inuu marinta dadka ka hadlin kasakow wax badan oo dhibo ma jiro anaga xuduudda meeshan ka sheekayna xuduudda bayzooy xuduuddu waa anigu ma joogno xagga Soomaaliya halka ka khaldanta iyadii aato inaad tagtay iyo kala ma garanayeen waxaad ku taala aan ciidankana dhanka deegaanka nagu jooga ciidanka deegaanka Soomaaliya waa anaga u tagay oo diyaarad ugu tagay meeshay degan yihiin waan weydiinayo magaalada kuma jiraan magaalada xan ka soo kaysay joogaan hadii loo baahday laakiin magaalada soo warway galiyaan caawinayaan iyagoo ka caawinaya ciidankii Soomaaliya halka jooga waa iskaashi amni naga dhaxeeya oo argixisada ka dhana kolka wax noo diiday ma inaan iskaasho iyana way inta soo galaan gudaha naga hadii aan culays dareeno way naga caawin karaan iskaashigaasi iyo isfahankaasi labada dawlad ka dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya marka rabtaan ciidanka Naples iyo ciidanka Ethiopia oo diri kartaan Soomaaliya markaan rabno maaha markaan ka wada hadalno dawladda Soomaaliya iyo maamulka halka iyo ciidanka halka jooga waan sameyn karnaa waan sameynana markaan rabno maaha wariyaasha lagu sheegay laakiin dawladda anagu waa wada wariyaasha u macaysanaya inay markaan rabno tahay laakiin Soomaaliya maamulka halka ka jira iyo dawladda Soomaaliya anagu u sheegin operation kama qaadayna aga mana sameeyno sax Soomaaliya gobolada xuduudda aad la leeyihiin tusaale ahaan Hiiraan kala dagaal ayaa ka dhacay u dhaxay dadka deegaanka iyo kooxaha nabadgelyo waxa la rumaysan yahay inaad ku lug leedihiin dagaalkaas ma dawladda federaalka hal martaan mise toos baad uga khidaabtaan odayaasha beelaha iyo maamulka gobolkaas ka jira dawladda federaalka marnaa oo aan ogolaanshaha ka ogolahay istaraatiiji ahaan aagaas in dadka aan caawino operationally wixii ku saabsan maalinka iyada shaqada la qabanaya aniga ima soo gaadhay mas'uuliyiinta hoosta jooga ee gobolka kuwaas way ka shaqeyn karaan ogolaanshaha siyaasadeed iyo jihada hadii la isla qaato maanta gaari baan u baahanay halkaas ay raashin noo keenado maamulada hoose qaban kara taa macnaheedu ma muujinayso inaan dawladda Soomaaliya la ogeysin ama dawladda Ethiopia la ogeysin ma ogolaanshaha aan iska kaashano argagixisada oo ka wada shaqeyno ونقدر نحيا رئيس الوزراء نقول هالك يمنا رئيس الوزراء الصومالي مدن حمزة هالك نقول يمنا أرميه إسكارت بوحان أن كمر نبوها مدحين مركو يمد مدحين حسنا أرميه إسكاشي هالك إن أنا أرجع سيد الله دجالنا عن كل قادنوها إيران إذا كنت توصى وسراكيش عيدك إثيوبيا نطلعات أم عيدن كجار كعات عياتين ماملك وتاجرتين ده في ديان كان هالجن كله وتاجرتين إنه هو بيسن وصح صومه ها شلون لك على مكواه ها dadka dhanaatisan mise cid gaar gacanta u gelin mise dawladda Soomaaliya cid waayo dadka deegaanka mid ku dhigsan mise maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka maamulka meesha ka dhisan ee shabaab la dagaalamaya iyo ku wareejiyay anigu qabayl waxna ma gelin meesha fadhiya reer 4.5 intaan u yeerno reer inuu la siinaya ma oranayno maamulo meesha ka dhisan baa jira maamulkaas aan iska kaashanayna shabaab laakiin waxaan la yaabanahay dadka ka sheekeynaya midalanba ciidanka Soomaalida ee yani su'aalaad weydiinayso ciidanka Soomaalida ee xadka jooga aata jooga oo kale dadka ay xanuunka ku hayso ama in dal la soo galay ama in Soomaaliya dawladda Soomaaliya la gacan dhaafay oo kale aragtida saxaabada ka sheegay ilaa hadalada soo dhacaya waa sidaas ama maxaa dadka hiiraha ka dagaalamaya loo taageeray oranaya ujeedadu maxay tahay ma fahmin ilaa ashaab hadii waan gartay hadeen ashaab ahayn wax allaala wax ay Soomaaliya dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya u soo kordhinayso mooyee wax ka dhibaysan garan laha ee la isugu dhibay baa hawshan in lagu bogaadiyo oo la yiraahdo si fiican baad yeeshaan wada mooyaan su'aalaha noocan yay qancinayaan farxaan inka beeska shabaab qancinayna macnaha shabaab codka shabaab ilaahay maaragtay Soomaaliya la soo weeraraya iyagoo Soomaali gowracaya ma kuwaas qancinaya ilaa dadka Soomaaliyeed shabaab laga qabtay rabaan oo ognahay wixii 4 sano la soo dhaafay siyaasadda Ethiopia ku wajahneyd Soomaaliya way deganeed faragelintii ka horeysay gobolada inay ka yimaadaan madaxda dowladda oo Addis Ababa ay tagaan inta badan hoos bay u dhacday dowladda federaalka oo kaliyana la xiriiray May 2022 markii uu dhacay isbedelka siyaasadeed xunka Soomaaliya ku yimid waxaan aragnay generaalo dowladda Ethiopia ka tirsan ciidanka Naples ka tirsan oo tagaya Baydhabo
tegaya beledweyne tegaya dhuusamareeb tegaya garowe ka madaxweyne ahaan deegaanka soomaalida xuduudda soomaaliya la wadaagay ugu dheer adiga ayaa madaxweyne ka farintaas maxay tahay isbedel baa ku yimid siyaasadda Itoobiya ee Soomaaliya ku jira isbedel kuma iman siyaasadii lagula dhaqmay dowladda ka horeysay dowladda hadda ka dhisan muqdisho isbedel ku yimid oo istaraatiijiyad ma jiro kiin baa la aaminsan yahay madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh iyo ra'iisul wasaaruhu dalku ay sarkeen way ka wada hadleen arrinta laga heshiiyay waxaa jirta xilligii dowladda doorashada Soomaaliya ay dhacaysay iyo intii aan isfahankan iman intii u dhaxaysay dhaqdhaqaaqyo aan caafimaad qabin oo ka socday geeska ugu jira dhaqdhaqaaqyadaas aan caafimaadka qabin matalan ba abuurmay oo laga yaabo kooxo aan jeclayn in labada dal ay wada socdaan ay dabada ka riixayaan waa laga yaabaa inay yaroo kala did ah marka hore ay abuurtay marka si sax looga hadlo laakiin waxaas madmadowga ka meesha uu ka baxay iskaashi buuxa iyo isfaham buuxa jira dagaalkii al-shabaab baan ku laabanaya markaad ka hadlaysay waxaad sheegtay madaxweyne in kooxo waqooyi iyo xagga isku xiran xagga kaga dhufta ereygaas ay isticmaashay waxaa jira wax isku xiran oo la xiriirta dagaalka kooxdaas ay soo qaadeen kooxo kale Itoobiya gudaheeda ay ku lahaayeen hawa jiraan matalan ba kuwii soo galay xad ka soo galay waxay xiriir la lahaayeen qolyaha ka dagaalama Oromiya oo toos ay dad ugu joogaan in xagga galanayo ilaa Oromiya galaan xagga qaska bilaabay rabeen koow waa cadayn oo iyagoo maraya tuulaleyda meeleyda degmaleyda ceelkar hadda qaar meesha dhaafay oo jiro oo xagga galani way jiraan oo la ogyahay qoladaas iyo qoladii hadda TPLF-na waa isku xirnaayeen marka anagu xogta aanu hayno dhacdooyinka amni darrada dalka ka socda ama Benishaangul ka socdaan ama kuwa Tigray ka socda ha noqdaan ama kuwa Oromiya ka socda ha noqdaan ama kuwa shabaab ha socdaan coordination iyo xiriir inay lahaayeen shaqo kuma jiro dowladda Soomaaliya ma la wadaagtay waa la wadaagay labada dawladood si fiican bay uga wada hadleen arrimaha noocaas madaxweyne doodo iyo isku haysi badan ayaa ka jira deegaano ku yaala xuduudda gobolkan uu la wadaago ismaamulada ama qowmiyadaha kale waxa kamid ah Oromada iyo Anfarta waa dhulal muhiim ah oo Soomaalida la aaminsan yahay in la doonayo in laga durjiyo maxaa ka qabateen 4 sano aad joogtay xukunka deegaanka Anfarta saddex tuulo oo hadda ka hor maamul ahaan iyaga la hoosgeeyay oo dad Soomaaliyiin ay leeyihiin yaa jira arintaas markii la fulinayay hore maadaama sharciga waddanka u yaala iyo dastuurkii la baalmaray oo si loo baahnaan loo fulin oo xoog lagu fuliyay qolihii TPLF ay xoog ku fuliyeen dad Soomaaliyeed meel jooga iyagoo waxba afti laga weydiin waxba la oran leeyahay maamul ahaan xaggaas hoos tagaysan maadaama la yidhi markii isbedel ku dhacay waxa ka abuurmay qallaase amni oo dadkii ay leeyihiin wixii cidii dusha laga saartay day meesha ka baxday hanala eego arintii marka anaga waxaan noo banaanaa maamul ahaan inaan dooda shacabka ka timid xaqiisa dad Soomaaliyeed maadaama yihiin inaan waan qaadanay siyaasiyan wixii loo baahnaa waraaqaha waan ka qornay go'aanadii loo baahnaa waan ka qaadanay dhulkani dadkan ku nool arintooda dib loo eego arinta ah halkii ay u baahneen in la gaarsiiyo siyaasiyan waa la gaarsiiyay doodeedina way socotaa laakiin dhanka amniga waxaa dhacay duruufo kala duwan oo dagaalkii meesha ka jiray waqooyiga uu keenay markuu dambeysay awgeed iyo hub badan oo meesha soo galay in dadkii la soo qaxiyay marka maanta xaaladdan ku jirno waxa way dadkii inay ka soo qaxeen meeshii saddexdii tuulo dadka Soomaaliya waa laga soo barakiciyay iyagoo qaxbay xaggan gobolka City galbeedkiisa qaybihii kale ee gobolka iyo ku soo qaxeen waa xaalad taagan oo u baahan labada deegaan iyo dowladda dhexe inay ka wada hadlaan sidii loo sameyn lahaa xal waara looga gaari lahaa anagu waxaan ka qabanay inaan doodii siyaasadeed arrintaas u baahnayd keeno dhanka amnigana wixii aanu difaaci karinay ahaa dhulkii maamul ahaan markii horeba deegaankana ku jiray hadda saddex magaalo oo kale amni ahaan ma tegi karno inkastoo meelaha qaarkood tagnay si aan dib u soo badbaadino laakiin waa deegaankana ku hoos jiraan sharciyan meelaha dadka lagu wareerinayo saxaafadda dhulka ma la difaacayo waxa la yiraahdaa waxa kamid ah saddexdan magaalo sharciyan gobolka ay ka tirsan yihiin kolka ciidan deegaanka lagu leeyahay oo tagi kara halkaas hadduu tagu qabsadana joogi kara ma jiro sharciyan waxa markaa nala gudbanaatay in dadka barakuc laakiin inta halka kama socon kaliya meelo badan oo ka sokeeyo fara badan baa yaa isku day u jira taa inaan joojino tan saddexda magaalada inaan sharciyan
iyo doodii loo baahnaa meeshii la tago madaxweyne xukuumaddaadu way ka laabatay heshiiskii saddexdan deegaan lagu wareejiyey horey waxaad u sheegtay inaad ogolayn intaa ka dhul Soomaaliyeed ah intaad xukunka joogtid cid kala qaadato heshiiskii kameedka uu ka laabtay oo buriyana lama fulin maxaad dareemaysaa yaa fulin lahaa systemka aad ka tirsantahay ma fulin yaa fulin lahaa deegaanka Soomaaliya fulin lahaa anagu waan ka laabanay yaa kolka hore keenay heshiiskan oo abuuray dowladda federaalka ma maxaa tahay de way socotaa doodii yani may fulin macnaheedu ma fulaysa maaha waa la geeyey halkii loo baahnaa golihii federationka waa la geeyey dowladdii dhexe waa loo gudbiyey waa dood socota meesha kusoo dhamaataba annagu go'aankii nala qumanaa marka ay shacabkan dareenkiisa Soomaaliyeed ah inaan gudbino kuma khaldanayn fulinta ileen meel marinta yani go'aankaasi laakiin dowladda federaalka u yaala ta kale dhulkan Soomaaliya ta ka Soomaaliyeed inaan bixiyo moga de ta ka Soomaaliyeed ma aha meeshan marka sharciga laga hadlo ugumaana nima bayo Soomaaliya iyadoo la bixiyo baan u nimid oo deegaanka ay tahay dhul Soomaaliyeed dad Soomaaliya yaa ku nool laakiin dhul ahaan gobolka Anfarta la raaciyay السبب الصومالي بقى كله الصومالي بقى ما بس هذا شرعيا ما كان هذا كان يسكر لوتش ما دول كان الصومالي يعني سووها لأن شرعي كان كدولو دولب لنا دول كان صدق للمجالو ما مكعفرتها اللي هو سجي وكلا كان شيء يكره وحان كلا بني هالشيء كذا اللي هو سجي خلط بعض وارجنا تذكر أفتها اللي ويجيو وحان كلا بني تقوى هالو ما أنت روح عيان قانون نقاقنا نقصك كنا مرة ولا وري كنا بس عنيسا صبر كعيد صامة خالد ويا صبر كعيد هل كان نزولية جيدة عدة كلها ولا جواد هلا يا لها كاركود عنو عيدا عن غيره تشوقي يوم تشوقي بس صبر كعيد هذا السبب دي كلها صبر كعيد يا مزولية صومالي ده أنا قاعد أقول أسا عيد صبر كعيد سماها الله قبيل السنة هذي يا الله وقف السنة هاي وعيدا كل هاي وخالد عيدا كل كلا صبر كعيد إن صبر كعيه ما هين وخلط أنه أهانتنا أود أنه أصدق هذا مجال أو شرعيا قعنتنا ذا أن كتشين أنه عيدا كي ماشى تشوف يقول له بيجي مثلا بعيدا كاسمه هكذا تشوف أنا هذا ما أقبله صلاة مركا ما راح نسمع لها إننا نسكت عن الدولة هذا راح والله تقال دولة ترى كمان سعيد تشوف ها وكتشوف وتشوف العيد ما تشوف هذا الله وصل لو دي سنة أنت تقال بالله من هربة عيدا في الدين ماشى هذا اللي وتشوف عيد إذا في الغربة شو مال بنان علامة لا عفوا ولا بركعي مجران الصومالية ولا سوى بركعي صح dad afar oo barakacay fara badan anigu ma ogiyo xagana ka barakacay anaga duban dhaxno reynba xaaladda meesha taala waxay tahay anaga dad Soomaaliyeed baa gobolka Anfar ku hoos jiray dad Anfar oo gobolka ku hoos jiray ma jiraan waxay anigu ma aan weerin marka maxaa la barakacin istaraatiijiyadahan dhulkan muhiimadu leeyahay madaxna ogsoon tahay wadada laamiga ee tareenka ayaa maraysa oo waa meel muhiim ah Soomaalida isirka Soomaaliga muhiim ah مسؤوليات قارة مصطفى سو كما سارنا maadaama isagoo hadda Soomaalida madaxweynaha iyo maamulkiisu in difaacaan oo qareemaan oo wada kasta oo maran si dadkan ay xaq u leeyahay deegaanadana dib gacan Soomaalida wada kasta iyo tabartan oo dhan iyo kulli waan isugu geeyay waan wadnaa waxaan qoomeyn ma jirto halka ku saabsan oo dhinaca dadaalka dhinaca natiijada go'doomiyay way jiri karaan dhinaca dadaalka dadaal fara badan ka geysanay hawshaas iyo dadkaas inay soo barakicin iyo in maaragtay dadka halka ku nooli Soomaalida halka jooga xuquuqdooda inay helaan dadaal badan u galay runtii ku sharciyeed baan u galay ku siyaasadeed baan u galay ku amni baan u galay rajada ka qabtay in dhul Soomaaliyeed mar kale aan maamulkaas soo hoos gelin oo ay Soomaaliyeed noqdaan oo deegaankeena ku soo laabtaan meeqay laagta anigu aragtida aan qabo yani hadda process badan baa socda dalku maadaama uu dagaal galay waxyaalo fara badan oo noocan oo kale meel banda ka jiraan oo isahaysiya iyo isriix meel kale oo dagaal ka dhacay jira waxaan aaminsan markii siyaasaddu fadhiisato hadda dagaalkii waqooyiga uu istaago arrimaha noocan in si sharciyan loo gali doono aaminsan guray dhaamool waxay kamid tahay Soomaaliya dhulka ayana oromadaas ku haysan iskuma hayno isku dhacba ka dhacay iskuma hayno waa deegaan Soomaaliyeed waa deegaan Soomaaliyeed laakiin chaar baan lanahay dowlis baa jirta laakiin ay doonayaan inay dhul qaataan Soomaaliland soo waxa sidii horta doonis anigu dawlad baan nahay suuq saxaafadda yani suuq wax laga leeyahay saxaafadda oromadu waxay leedahay Soomaaliya waa dhul qaadanaysa ee leedahay ta Soomaalidu waxay leedahay orba qaadanaysa waxa inaan anagu dhex galmaha dawlad baan nahay anagu waxaan ognahay isku dhac inuu ka dhacay halkaas ku salaysan isriixdu oo halkaan ka dhacay dad Soomaaliya la soo barakiciyay dad oromana waa la barakiciyay hadda madaxweyne ku xigta hawshaas ku maqan yahay
heshiisna waa laga gaadhay waxaana lagu heshiiyey cid walba halkii hore ay joogtay ha ku laabato marka waa hawl xidhantay وهاجم أدبا ما صنتهاي وحن رواينا نوجد بو دعوين كهوري لفتر كاغنا سامين كوله سي شخصية ولبا ديان كان كدعي فرسنة كهر انتي إثيوبيانا أي حكوميين كوحدي هوري حقوق جوبت تعديه بدن بعد ديان كدعي وميلا أفريقيا أما هدو سنهين كو ugu horeeya ugu lita oo noqonaya kuwa ugu horeeya تعديداس maamulada isbedelay Ethiopia ayaa salwaha ama ha fogaata ama dheeraato ilaa hadda lama arag cid heshay garsoor sax ah iyo cadaalad ay munaayeen afis guudna lama maqal ma loo arkaa in maamulka uu ka gaabiyo arintaas Shabeelle Bank shakhsiyaad garanaysid baa shilinkaaga loo dhiibtay Shabeelle Hamuugaanina Sharo hotelka casriga ah ee Four Seasons oo markaas ah hotel caan ka guud ahaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ayaa waxa uu macaamiishiisa caasimada ugu bishaareynaya inuu xarun cusub uga furay magaalada Jigjiga dhismaha xarunta cusub ee Four Seasons oo markaas uu maalgashtay milkiilaha hotelka Four Seasons ayaa waxa uu macaamiishiisa ugu bishaareynaya in halkan ay ka heli doonaan neecaw jawi degan sidoo kale dalawaadka ay ka heli jireen hotelada Four Seasons Hamuugaanina dhismaha cusub ee New Four Seasons xalaal supermarket wax kastoo aad doonto dunida uga baahnayd marka dalabkeeda sheegtay durbaho ku leeyihiin hoyga adeega iyo shoppingkii xalaal supermarket waxa uu dhammaan macaamiishiisa ugu bushaareynaya inay ka heli karaan dhammaan adeegyada la mid ah kuwa dunida horumaray hoygiisa balbooqda xalaal fududeeyo weeye gidigin kaalaya haddaba bulshooy Hamuugaanina xalaal supermarket oo markaasi ku yaala inta u dhaxaysa hoolka sayidka iyo sidoo kale hoolka qoryaandhoodaan gaar ahaan halka ay ka baxaan gaadiidka yaryar ee u kala goosha xaafadaha Qoomaadaha sidoo kale Taiwanka ama xaafadaha 6 iyo 7